weliba talaado kowda bisha July 2025 barnaamijkeena maanta waa barnaamij weyn oo aan rabno insha Allah taala in qof kasta oo Soomaaliyeed oo uu soo gaaro oo share ku sii qabto haduu Ilaahay idmo waa barnaamij ku saabsan sharci iskala noqoshada shalay lagu dhawaaqay ka timi dawladda federaalka ah ee dalka Mareykanka maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu soo saaray warqad uu amar ku siinayo waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanka Department of Justice ka loo yaqaano in ay bilowdo in dadka barkiis loo bilaabo in lagala noqdo sharciga weyn ee ka qaateen dalkan Mareykanka dadkan sharciga lagala noqonayo ayaa ah dad aan Mareykanka ku dhalan laakiin qaatay sharciyada dalka Mareykanka kuwaas oo dad fara badan ay kamid yihiin waxaan maqli jiray dagaal gudaha ka dhasha dad badan ayaa waxa ay haystaan certificate-ka ama dhalashada qaateen iyaga oo ku dhashay wadamo kale oo dalkan Mareykanka imaaday hadaba yaa loo dan leeyahay aan eegno waxa madaxweynaha iyo kooxdiisa ama xirtiisaba ay amar ku bixiyeen in la bilaabo in la sameeyo civil proceedings ama sharci kala noqosho oo waliba aan criminal ahayn waxa kala ah hadii dacwada lagu qabsado ama la rabo in sharciga laga noqdo oo noqdo ay noqoto sharciyad ama amar ama qayb ku saabsan wax criminality oo dambi ah waxa ay noqon lahayd dawladda federaalka inay ku qasbanaato in numberka koowaad ay ku ogolaato inaad lawyer ay ku qabato iyada oo lawyer free ah numberka labaadna waxa ay noqon lahayd in ay cadeyn la imaadaan waxa loo yaqaano beyond reasonable doubt wax shakiya in aysan gali karin dambigan iyo dambiyadan ina leedahay laakiin lawyerada waxa ay ku doodayaan abukaatiyaal fara badan ayaa ka dooday arrinkan waxay ku doodayaan hadii case-ka laga dhigo case civil ah civilka case-ka ah boqolkiiba 51 kaliya inay cadeyso dawladda bay u baahan tahay oo way ka duwan tahay marka criminalka ay tahay oo boqolkiiba 100 inay cadeyso ay u baahan tahay tan labaadna waxa waay dawladda wax xuquuq ugu lahaanaysid in ay lawyer free ah ku siiso hadii aadan awoodin in aad soo qabsato abukaate adiga aad leedahay meeshaasna qarash xoog la ayaa ka galaayo oo waxa dawladda u fududaanayso hadii caseska laga dhigo civil in ay noqoto in ay u fududaato case-ka in mar walba iyaga ay ku guuleystaan so dadka gaarka ah oo loo dan leeyahay ayaa waxa ay ku sheegeen dadka dhalashada ku qaatay si qaldan oo wax qariyay waxa loo dan leeyahay bay yiraahdeen dadka dambiyada galay waaweyn waxa kale oo loo dan leeyahay qolyaha ka qayb qaata gangska iyo waxaas waan idin soo socdaa waxa way fara badan tahay 12 qolo baa la soo list gareeyay so waxa ka sii mid ah la yiri gang memberska dadka dambiyada waaweyn galay dadka waxa la yiri ugu daraanayso wax ka qariyay dawladda si ula kacana misrepresentation u sameeyay waxa ka sii mid ah la yiri dadkaas dadka galay dambiyadii meesha maryooleyda ay ka soo galayso waxay noqonaysaa dadkii PPP programkii ama paycheck protection programkii wax ka qaatay oo dambiyadaas lagu helay dadka gala loan ama deynta inay fraud ku galaan ama qof lagu qabsaday hadda ka hor inuu sameeyay Medicaid kaarka caafimaadka iyo Medicare fraud qof isagoo shaqeynayo dawladda ka qariyay kaar caafimaad qaadanayay ba ka mid noqonaya hadii dambiyada noocaas lagu helay oo lagu convict gareeyay oo macnaha judge-ka uu ku dhuftay oo dhaqafkan dambigan waa ku cadi heebaana lagu haya dadkaas waxa laga noqonayaa baa la yiri dhalashada ay qaateen ee dalka Mareykanka sidaas la mid ah waxa la dhahay dadka ka qayb qaata daroogada qaadka oo kala kamid ah daroogada dalka Mareykanka inay keenaan ayaa iyagana kamid ah dadka laga noqonayo intaas kaliya kuma eka dawladda dadka wax ka dhacay waxa ku jiro dadka iyagana lagu soo eedeeyay oo dacwad ay ku heshay maxkamad inay galeen wax isdaba marin xagga hata dad private individuals qof hata private ah oo caadi ah hadii aad wax idin dhaxmareen oo aad wax ka qiyaantay waa lagu soo darayaa hadii aad dhaqaale qiyaantay oo funds bangi iyo waxa ka qiyaantay waa lagu soo darayaa waxa intaas ba ka sii daran
haddii aad cooperations ama kambaniyo waaweyn sida Microsoft, Tesla iyo oo kale kambaniyada waaweyn oo cooperationada ah dalkan Mareykanka aad wax khiyaano ah iyagana ku samaysay waad ka mid tahay. So kama aysan soo jawaabin baa la yiri waaxda justice-ka, laakiin waxaa bilaabatay hadeerba in amarkan la fuliyo oo ay ku dhaqaaqaan dowladda federaalkana ay ku dhaqaaqdo in ay bilowdo dadka in iyadoo isticmaalayso amarka shalay soo baxay iyo digreetadii ka soo baxday Attorney General Office-ka in la dhaqaajiyo. Waxa shalay baa already lagala noqday sharciga nin kolay Ingiriiska ka imaaday asalkiisa hore kaas oo lagu soo eedeeyay in uu qaybin jiray kaydin jiray storing and distributing baa la yiri, wuxuu store garaysan jiray ama kaydin jiray ama uu qaybin jiray oo internetka uu ku bixin jiray filmadan anshaxa xun laakiin aan ahayn dad adults dad waaweyn caruur. ninkaas isaga shalayba waa la kacday seefta waa lagala noqday. wuxuu sheegay in intii hataa uu citizenship-ka qaadanin oo dhalashada uusan qaadan oo Ingiriiska uu markuu ka imaaday ka horba waxaan sameyn jiray uu dhahay arrimaha noocana waan ku jiray, laakiin wax hadda aan markaan citizen-ka noqday aan bilaabay ma aha. So dambigaas isma affect garanayo asagoo ku doodaaye waa wax aan markaan green card-ka haystayna aan sameyn jiray, wax markaan I-94-ka haystayna aan sameyn jiray. So ima qusayso dhahay isma qusayso citizenship-kayga iyo waxana dambiga igu qaada, laakiin ninka seefta ugu horeysay oo ay leeftay ninka ayuu noqday. dadka marka specifically financial fraud-ka galay transactions-ka, dadka lacagaha dhacay, dadka khiyaanada ku sameeyay kaarka caafimaadka iyo waxaas, dadka kamidka gangs-ka ayaa lagala noqday. dadkan marka dalka Mareykanka sharciga u yaala qofka waxa uu noqonayaa baa la yiri haddii lagala noqdo oo denaturalized noqoto citizenship-ka lagala laabto dhalashada, waxaa lagu geynayaa levelkii hoose oo aad joogtay oo inaad tahay permanent resident ama green card holder. haddii marka green card holder ay ka dhigaan meesha ay loophole-ka ka helayaan daloolka waxa waaye qofka markii ay ka dhigaan green card holder ama ay ka dhigaan permanent residency, waxa dambiga uu galo kama reebayso marka dowladda inay tarxiil kugu darto. tarxiilka naftiisa ayaa la isweydiinayay oo de looyarada arrinkan aad baa loo ableeyay. tarxiilka naftiisa ma waxaa lagu geyn doonaa dalkaagii hooyo oo aad u dhalatay, mase waxaa lagugu tuuri doonaa xabsiyada Guantanamo Bay, El Salvador iyo wadamo kale oo aadan u dhalan sida South Sudan oo kale baa la sheegaya. maxkamadda ugu sareysa dalkan waa ogtihiin waxa ay ayaan dhaweyta ansixisay in Trump uu ku saxan yahay in dadka intuu ka qaado dalkan Mareykanka dalkii ay u dhasheen aan la geynin oo third party country la geyn karo, wadan kale oo saddexaad la geyn karo. So meel lagu geyn doono ma taqaanid ama ma yaqaanaan dadka lagala noqday dhalashada, laakiin iyaga waxay ka rabaan kaliya in markay kala noqdaan ay u sahasho in dowladda ay ku qaadi karto, ku tarxiili karto ayada oo weli kugu sii eedeynaysa dambigii hore oo aad u gashay oo lagaaga qaatay sharciga. marka arrinkan ayaa cusub, shalay ayuu soo saaid usoo ifbaxay. amarkaas ayaa ka soo baxay Donald Trump iyo kooxdiisa iyo xirtiisaba. waxaana la rabaa insha Allah taala in ay dardar geliyaan hay'adan sida lagu amarka lagu siiyay. marka I hope Ilaahay naga badbaadiyo, Allahumma najina. dad badan oo Soomaaliyeed kuma badna Soomaalida dhibtaan, laakiin dad xoogaa baa jira oo kuwii lagu qabsaday case-kii Minnesota iyo kale in lagala noqdo waa laga yaabaa, laakiin waa just for information inaad ogaataan waxa ka socda systemka dalka Mareykanka. inta ayaan rabay inaad la wadaago. waa idin salaamahayaa. Don't forget to share the video, subscribe to the channel haddii aad ugu cusub tahay, and like and share the video insha Allah. Assalamu alaikum.